waxaa maanta magaalada Qardho ee xaruntan gobolka Karkaar soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Farole waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo qaar ka mid ah shacab waxaana loo soo gulbiyay madaxweynaha hoygii loogu talagalay inuu ka dago magaalada Qardho kadib markii madaxweynaha hoygiisa soo gaaray ayaa waxa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Khaliif Ciise Mudan oo u sharaxay saxaafadda maanta madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan ayaa wuxuu ku yimid booqasho magaalada Qardho gobolka Karkaar halkaas intuusan iman wuxuu soo maray degmooyinka Dangoroyo iyo tuulooyinka soo la xiriira iyo kuwa gobolka Karkaar si fiican baa loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho dadku aad bay u soo dhaweeyeen runtii odayaashii iyo isimadii iyo waxgaradkii ilaa iyo wax laga hortagay ka sokadeeda si fiican baa loo soo dhaweeyay magaalada intaanaan iman dhalinyaro yar baa waxay sameeyeen ciyaal arday quraan iyo dhalinyaro yar waxay sameeyeen dhagaxyo meesha dhigeen waana laga qaaday meeshii ciidankii nabadgelyo ilaalinayay waxa badan kor u tuuraya ayaa laba qof ku dhaawacay oo aan dhaawac culus ahayn labadii qofna madaxweynuhu wuxuu amray in la daaweeyo waxa alla waxay qabaanna hadda gurmad degdeg loo sameeyo xaaladda amniguna hadda aad bay u degan tahay wax dhibina kama jiraan intaas baan kusoo koobay haddaan wax su'aalo qabtaan aan soo saacatu wasiir waxa weeye mucaaradad xoog iyo mudaharaad ka jiray magaalada waxa weeye laba qofna waa ku dhaawacantay taasoo aragtaa mucaarado ma ahayn mudaharada kama jirin dhalinyaro yar bay ahayn la soo diray raggii soo dirayna waa naqaanaa tallaabana waa ka qaadanaa sharcigan horgeynana cidii ka dambaysay qof ka maqnaan doona mas-uuliyaddiisa qaadi doona male waa dhalinyaro waay laakiin dadku si fiican bay u soo dhaweeyeen aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale wasiirka ayaa sheegay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Qardho inay abaabuleen mudaharaadkaasoo ay laba ku dhaawacmeen halku dhimashaduna ay ahayd hal qof sida uu wasiirku sheegayba mudaharaadkan ayaa waxa uu dhacay sida tan sameeyeen dhagaxyo meesha dhigeen waana laga qaaday meeshii ciidankii nabadgelyo ilaalinayay waxa badan kor u tuuraya ayaa laba qof ku dhaawacay oo aan dhaawac culus ahayn labadii qofna Yaxya Nuur Mono telefishinka caalamiga ah oo xarunta gobolka Karkaar magaalada Qardho